kadib qaraxadii ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabeen qorshooyin lagu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxasi yeeshee waxa jira in qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda ee magaalada Muqdisho in ay bilaabeen in dadkaasi masaakiinta ee dhibaatada qaraxada ka soo gaartay ay ka faa'iideystaan dhinaca dhaqaalaha marka la eego gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo ka warharay xogaha sheegaya in qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda dadka gurmad ahaan u tagay ee dhiig doonay inay u bixiyaan dadka walaalooda ee qasaaraha ka soo gaaray ama ku dhaawacmay qaraxdaasi ee doonaya in lacag baaritaan ah oo gaaraya $29 ay qaadaan hay'adda gudoomiyaha oo shir jaraa'id warbaahinta Muqdisho uu qabtay waxa uu sheegay in ay haatan bilaabeen baaritaanka la xiriira in qaar ka mid ah isbitaalada lagu sheegay in markaasi ay bilaabeen inay lacag ka qaadaan dadka tabarucaad u tagay in dhiig markaasi ay bixiyaan wuxuuna sheegay in dadkaas baaritaan haatan maamulka gobolka Banaadir uu ku wado cid alaale cidii ama isbitaalkii lagu helana talaabo sharci ah laga qaadi doono waxa uu sheegay gudoomiye Madaale in dadka Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan looga baahan yahay in markaasi ay qayb weyn ka qaataan doorna ay ku yeeshaan sidii dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxyadii ururka Al-Shabaab shalay ay ka fuliyeen agaarka isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxyadaas oo laba ah dhibaato culus ay ka soo gaartay gudoomiyaha oo wajigiis laga dheehan karay arag ka dhalatay qaraxyadaasi waxa uu sheegay ka maamul ahaan guddi arintaas ay u magacaabeen guddigaasna oo si weyn uga qayb qaadan doono daryeelka iyo gurmashada dadka ay waxyeelada ka soo gaarto isbitaalada waxaan farayaa inay dadkooda Soomaaliyeed ee ehelkooda ah ee dhibka xalay dhaca ku gaaray qaraxi xalay ku gaaray shalay ee ku gaaray dhaawac ku gaaray inaysan lacag weydiin ayaan amraynaa haddii uu dhaawac culus jiro ay maara waayaan waa la isla xalinayaa laakiin dhaawacyada ay xalli karaan lacag ku xirinaan leenahay waxa kale oo soo gaaraysa ruuy baan waxay tamanaqaano baaritaan aan sameey doonaa kuwa dhiig shubaayay in lacag la weydiistaan waxaan ku arkaynaa meelaha ku arkaynaa arintaas haday run noqoto qof dhiig shubaayo oo dhiigiisa tabarucayo in lacag la weydiiyo aqliga caafimaadka qaba xataa ma ogola laakiin haday dhacday isbitaalkii sameeyay waa la xisaabtamayaa hadii Ilaahay yiraahdo hadaysan jirin ma jirtaba laakiin haday jirtana waa arkaynaa isbitaalada waxa noqonina kuwa shabaab la mid ah ee dadka dhiigooda ka mushtarida kuna noqonina ayaan leenahay ala kulli xaal aan iskaalmayno aan gurmano dhinaca kale waxa jira in dad markaas isugu jira mas'uuliyiin iyo shacab gurmashada qaybka ah waxaana dadka markaas gurmashada qaybta ka ah kamida taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed afyeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Caanood iyo saraakiil kale ciidamada kamida iyo askar uu hogaaminay waxa ay tageen maanta in isbitaalka Digfeer ee Erdogan iyo halkaasina qayb weyn ka qaadanayay si dhiigooda ugu bixin lahayn dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay in ka badan 150 ayaa la xaqiijiyay in qaraxdii shalay ay ku dhinteen 300 in ka badanna ay markaasi ku dhaawacmeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaan si rasmi ah warar uga soo saarin ama qasaaraha rasmiga ah soo saarin marka laga reebo tacsida ee madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ay warbaahinta u marsiina dadka waxyeelada ay ka soo gaarto dad waxa jiro wali eheladooda ka baadi goobaya qoobtii garaxa uu ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho gurmadkana haatan inkastoo mid loo baahan markaas xili loo baahnaa aysan dhicin aflaan saac kadibna dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabka ay bilaabeen waxaan isbitaalada buux dhaafiyay dad markaasi aad u fara badan kuwaas oo helkooda ay weysan yihiin nolol iyo geeri intaba ay markaasi ku laayihiin ay isbitaalada ka baadi goobayaan qaarkoodna ay ka helaan qaarkoodna maanta marna bahda Risaale TV ee booqatay meedad horla laga soo saaray goobtii qaraxyada ka dhaceen ee magaalada Muqdisho guddi ay dawladda federaalka Soomaaliya u magacaawday ra'iisul wasaaraha ayaana guddigaas magacaabay gudoomiyaha sidoo kale guddi ayuu markaasi magacaabay in rol shaqooyinkooda ay kala duwan tahay waxaana sidoo kale xogaha Risaale TV soo gaaray oo helay sheegaya in markaasi saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ay jiri doonaan qaar ka mid ah dhaawacyada culus ee dalka wax looga qaban waayay in dalka dibadiisa loo qaadi doono oo dawladda federaalka Soomaaliya wada hadal ay kula jirto qaar ka mid ah dawladaha caalamka gaar ahaan dawladaha Carabeed ee dawladda federaalka ah taageersiya wararkeena saaxiibayaal waa naga intaa